miiska wareegan waa nooc ka mid ah qorshayaasha dagaal ee Illuminati. waxaa ku jira ururo awood badan ku leh dunida taas oo ay dhistay Illuminati, mid ka mid ah ururada siyaasadeed ee ugu awoodda badan dunida taas oo dalal badan ee caalamka ay hoos tagaan. Soomaaliyana ay qayb ka tahay waxa uu ka mid yahay Illuminati-ga siyaasadda taas oo uu dunida ku baahinayo hanaanka New World Order-ka. hanaanka New World Order-ka oo ah arin lagu doonayo in dawladaha dunida ay hoos tagaan Illuminati. sidee bay samaysaa Illuminati marka ay doonayso in ay awood kula wareegto waddan iyo siyaasadiisa iyo hogaamiyayaashiisa? laakiin ma aha dhaqaale maxaa yeelay dhaqaalaha 3 meelood 2 meel ee dunida waxa uu gacanta ugu jira xubin ka mid ah 14 Illuminati ee awoodda leh kuwaas oo dawlado badan ee caalamka oo ay Soomaaliyadu ka mid tahay ee deemo sahay iyo wax waliba ee lagu fulinayo qorshayaashooda ku bixisa iyaga oo adeegsanaya habka miiska wareegan. faahfaahin dheeraad ah kama bixin doono sababta iyo xilliga Soomaali Illuminati ka mid noqotay, laakiin imika uma baahno fasiraad dheeri ah maxaa yeelay waxaad dareemi kartaa inaad tahay muslim 100% siyaasadda Illuminati ayaanu ogolayn wax ka baxsan awaamirtooda in dunida lagu maamulo. waa tan keentay markii hore in Soomaaliya qaybo dawladeed loo kala jajabiyo ama loo kala qaybiyo. waa uu hergalay dhammaan intii ay doonayeen. tusmo miyay kaaga baahan tahay? Illuminati waxa ay farac uga samaysay Maasoniyada taas oo lagu magacaabo Maasoniyada xag jirka ah. tusmo miyay kaaga baahan tahay dunida Islaamka iyo marxaladaha ka dhacaya? haddaba kama warramayo siyaasad miiska wareegan iyo wixii la mid ah ee Illuminati-ga ka mid ah, laakiin dagaalka Illuminati waxa ka mid ah midka ka dhex socda internetka. baahida internetka ee dunida oo dhan ayaa sahlanaatay. sharaxaad dheeri ahi kama bixin karo, laakiin tusmo waxa kaaga filan dagaal ku socda diinta Islaamka iyo muslimiinta ee dhinac waliba. wax waliba waxa ay leeyihiin sabab abuurtay. ma garanaysaa sababta pornographiga ama shabakadaha gudbiya aflaanta galmada oo aad u aafeeyay dunida loo aas-aasay? haddii aad ka mid tahay kuwa daawada aflaanta galmada, saameynta iyo dhaawaca ay kugu hayso in kale ka culays badan ayaa kugu soo socota. haddii aanad dareemin dagaalka ku socda naftaada, maxaad ka ogtahay calaamadaha qarsoon ee baraha bulshada iyo internetka ee Illuminati kuwaas oo soo hoosgalaya qorshaha miiska wareegan? adiga ayaa ka mid ah ee daawanaya iyo aniga kuwa sida joogtada ah u isticmaalo. asbaabta keentay in la abuuro ka garo mawjadaha waqtiga ee uu ka luminayo, laakiin laga yaabo in aad addiction ku noqotay ama uu balwad kuugu noqday oo aad haleeli kari la'adahay inaad joojiso. Facebook waxa uu ka mid yahay qorshayaasha miiska wareegan. waana mid ka mid ah shabakadaha ugu balaadhan ee internetka taas oo ay leedahay Illuminati iyo Maasoniyada. tusmooyin si cad u qeexaya ayaa dhawaan ka soo muuqday kadib dagaaladii dhawaan dhexmarayay Falastiiniyiinta iyo Israa'iil, taas oo muujinaysay in Facebook-ga uu taageero weyn u muujinayay halganka dagaal ee Israa'iil ay ku doonayso inay kula wareegto Qudus. Apple Store oo ah madal lagu keediyo applicationada kuwa ku shaqeeya telefoonada nooca iOS-ka sida iPhone-ska iyo wixii la mid ah ayaa qayb ka ah shabakadaha internetka ee Illuminati iyo Maasoniyada. Android-ka oo ah operating system-ka loogu isticmaalka badan yahay dunida sidoo kale waxa uu ka mid yahay shabakadaha Illuminati. waad la yaabaysaa Illuminati iyo Maasoniyada xilligan oo aan kula warramayo waxa ay haystaan awood muuqata, laakiin sababteeda oo aadan adigu garanaynin waxa ka dambeeya. Gmail-ka dhamaanteena aan wada isticmaalno. qaybta kore ee loogada waxa ay astaan qarsoon u tahay bulshada Royal
ma garanaysaa bulshada royal waxa ay ka mid tahay bulshada royal 14 xubnood ee Illuminati. Gmailka waxa uu ka mid yahay shabakadaha Illuminati ee sida aadka ah loo isticmaalo. Chrome oo ah madal aad loogu isticmaalo in laga raadiyo macluumaadka Google-ka ayaa ka mid ah shabakadaha miiska wareegan ee Illuminati. Chrome oo leh iconka 666 ama 666 oo ka turjumaysa Illuminati-ga midka ay u gaar yeeleen cibaado iyo wixii la mid ah. waxaan uga la jeedaa ibliiska. Google GPS-ka miyuu ku jiraa taleefankaaga? astaanta Google GPS-ka waa astaan qarsoon ee lagu magacaabo siismada isha. maxaa lagula jeedaa siismada isha? su'aashani jawaabteeda adiga ayaa laga sugayaa maadaama uu application-ka uu ku jiro taleefankaaga. asbaabta iyo sababaha uu isticmaashana ku soo qor qaybta hoose ee faalada, kadibna ku dabaq magaca qarsoon ee siismada isha. waxa ay Illuminati ay ula baxday Google GPS. wax tusmeynahay uma baahna inaad ogaato siraha Illuminati, laakiin intoodaas kale ee aan soo sheegay waxa dadku ka qarsoon magacyadooda dhabta. Google Balayna waxa uu ka mid yahay shabakadaha Illuminati. astaanta loogadana waa astaanta Illuminati ee saddex geesoodka ama aada oo ay dhexda isha uga taalo. micno waxa ay leedahay saddex geesood. magaca qarsoon ee lagu magacaabana Google Play Store-ka ayaa waxa uu yahay Pyramid Capstone. Pyramid Capstone-ka waxa waaye astaanta loogada Illuminati. mid ka mid ah astaamaha asaasiyaadka ee maasoniyadda waa isticmaalka calaamadaha baraha lagu wada sheekaysto ee internetka. marka laga soo tago macnaheeda dhow oo cad, sawir fududna bixinaya, calaamado xambaarsan xiriir ka dhaxeeya kuwa soo saaray iyo mabda'a ay matalayaan oo ay ka soo jeedaan. waxaan ugula jeedaa Illuminati. sidoo kale shirkadaha xukuma suuqa waxa ay u adeegsadaan falsafad la mid ah marka ay naqshadaynayaan astaamahooda qaab qarsoon. marka xigta waxaan eegi doonaa qaar ka mid ah sawirada la xiriira saddex ka mid ah shirkadaha ugu awoodda badan adduunka ee tiknoolajiyadda iyo tixraac u dhigma ama suuragal ah. iyo sababtoo ah ma jiraan wax Facebook la'aan joogi kara. Facebook shaki la'aan waa mid ka mid ah shabakadaha bulshada ee ugu caansan adduunka, haddii uusan ahayn kan ugu caansan dhammaantood. baryahan dambe waxay sidoo kale noqotay tan ugu muranka badan, sababtuna waa siyaasadda, boorinta asturnaanta iyo fariimaha diiniga iyo daadinta macluumaadka shakhsiyadeed. dhinacyada saddexaadna waa ujeedooyinka ganacsi iyo siyaasadeed. qaybta labaad ayaan uga warrami doonaa mid ka mid ah shirkadaha ugu awoodda badan ee internetka. inta ka horeysa nabadgelyo.